maalintan oo kale aniga ma iloobi karo maxaa yeelay waan ogahay safarkan meesha uu ii kaxeynayo laakiinse waxaanan ogeyn wadada uu imarinayo nolosha jaliinka waa necbaha maxaa yeelay jacaylkaba jaliinka ayuu ku dhex jiraa رام تيفيق أتصوغ دما شقينايو 10 دقيقة كدب هو يزدمينايا وقتها بيني وبين وضعي تذكر البرف يا صعد قاري إنك حنان وأنا لوديد وأنا دالاني هدي أد مريكان كجوكت أنيق مرسيها إي كينين لبادينان لبا قفو كلا جيجسان إنان هادلنا معها يا أخي ما حد يقال هاد ليسا تاسو إسكا عدهاي أديق الدفاع عياد ديقا أروريسا أنيق نسي عاديان كولا هادلايا كالي مركان شركة كجر لي محاد يسو وعدا مرولبو ورهيد الشركة انت دقيقة قصدم كوكو في الناوي سيني هلو معاملة يلا جوغا أنيقا كوكو سوغاليني ايه رام ما انت نوا كوكو سوعلنا هيديسا محاوة بلانتا بينتا رالنا خبانو قردون في صحة يد القادة رام تليفونك إنا نعها ايقو قصبين 10 دقيقة ما تأديق ايام كسوغايا وانكو بريا مهمة دادا لبات حتى ايقا ديقو aabbahay hooyadiis ayuu aad u jeclaa sidaa darteed magaceeda ayuu iigu magac daray magaceygana waxaa la dhahaa barumati magacaasna iskuulkayga markii aan dhigan jiray ilaa iyo London aan jaamacad u aaday way daba socday Hyderabad ayaan ku noolaa shirkad deliveryna waan u shaqayn jiray maamulana waan ka ahaa mar walba si aan kalsooni ugu noolaano waxa wanaagsan jirkeena in aan dhidhno anigana si fudud ayaan jirkayga ku dhimay waxaan isku dayay qof akhlaaq leh in aan noqdo meesha kafeteriga markii aan taga mar walba waxaan ka fikiraa arrimaha ganacsiga inta badanna xooga asaga ayaan saaraa بانو أديت ما تصنت maxaad iigu mahadcelinay maadaama mashruucii Vietnam aad aniga ugu soo celisay midaasna wadan kaaga haya heeda waxa wanaagsan mar walba shaqadaada inaad qabsato waana sababta keenta adiga dib in lagugu soo celiyo shaqada waxaana wanaagsan shaqada oo kaliya inay xooga saarto adiga way Soomaan qofkii ugu soo celiyay shaqada sharaf ayay u baahan tahay maahane magac maaha adigana ilaahay hadda magacaaga oo saddexan ma aqaano haddaba ha ka fikirin arrimo kale mana jecli arrimahayga in lagu mashquulo mashruucana ha ku hirgalo waxyaabaha dadka ii soo bandhigayaan ma jecli waxaa laga yaabaa inay yihiin wax basiida nolosha waxba maaha balse waxaa loo baahan yahay jooska inaan annaga lahaano wax walba nolosheeda kamida doorashadooda aniga lahaa Ram 5 sano ka hor ayaan shir ganacsi ka wada kulanay gacaliyahayga wuu aqli badan yahay waji qurxoon wuu leeyahay lacagna wuu leeyahay maya aniga lacagta ma qiimeeyo nolosha qayaaligana waa nacbahay waxaana ka hordaa waxyaabaha guurka dib u dhiga xorriyadeyda waxaa loo baahan yahay expire date inay lahaato soo maaha haddaba 5 sano way ugu filan tahay aniga inaan go'aan ku qaato hadda waxaan wajahay nolol waji cusub leh iyo dareen dhaba halo barkiya saaxiibay dhageyso maalmahayga 2 maalmood oo kaliya ayaa iiga harsan waxaan rabaa dhowr maalmood oo kale inaan ku darsado Ram ayaa soo socda Soomaan maya haddaba waxa soo maya qay saaxiibay hay kadibna macaamiil Germany iiga soo socdo shaqadana way igu badan tahay okay stressna wuu igu furan yahay qaaban ula xaajooda ma aqaano waan ku fahmay daawadan ana fariin ahaan kugu soo diraayo ma ku fiicnaana dabcan oo ku fiicnaanay okay whatsappka igu soo dir saaxiibaan arag haye waaya waan isqabanayna okay mahadsanid هيا خياري هو إما نقصد صعدة بانو صاحبة دبالمد اسكده نين كان درتا أيو مريكان هو إما هذا لبديننا واسكو قلنتين أرض البابك كفر
baanu aniga qof kalaan arkooda macnaheedu gabar kalaan nolosheeda ku soo biirtay ilaa goorma ii sheeg ilaa goormee ayaan ku dhahay 3 bilood okay aniga 10 maalmood la soo dhaaf inaan kuu sheegan isku dayay u kaadi bal 3 bilood ka hor sida u malaynayso waxba uma jiraan arrintan waalidiinteeda soo fargeliyay runaanta anigan shaqadan aad ayaan ugu daalay adiga hooy mar walba waxaan ka shaqeynaa in labadiina wada kulantaan laakiin maxaad samaysay adiga mar walba ka xanaajinay war heeda hooyada mar walba daadeeda ayay weydiin jirtay anigana waxaan dhihi jiray wiilkaaga ayaan la daahay sidaas darteed iga ma helin aniga taasna aniga wax waan ka qaban waayay 3 bilood ee la soo dhaafay adii hooyada waxaad sameynaysan isbarbar dhig soo ma yaqi aamus waa ku bariya sida wax uma leynayso uma jiraan waan fahmay hooyada ma rabta gabar 7 jir oo xurriyad ku nool waxay rabtaa gabar yar oo masaakiin ay TV-ga la fiirsato oo dhehaysa maanta musalsalkee soo galay halqadana xaggee maraysaa yaqi sidaas maan hooyadii dooqay leedahay soo maan aniga maaba kala jecel yaqi sidaas maan baanu aniga inaad iga xumaato ma rabo teeda kale adiga waxa taa qof aad u madax adag midasna waad la socotaa adigaba teeda kale xiriir wuxuu naga dhaxay muddo 5 sano laakiin xiriirkaas magac oo kaliya ayuu xiriirka ah anigana mar walba waxaan isku dayay in aan adiga ku qanciyo dib ma lahan mar walba adiga waxaad ku fikirtaa wixii malahaaga ah oo kaliya laakiin waxa laga rabaa inaad ogaatid dadka kale inay fikir leeyihiin adigana waxaad isku haysataa dadka oo dhan inay kugu qanci karaan soo saas maahan xaaladdas markay arrinta maraysana aniga aan ahaada ama qof kale ahaada wax aad kala jeceshaaba yaratay male waxa dantaada ahna kama fikirtid alxaasil aniga hadda arrintan waa aan ku daale go'aan qaadashadana sideeda waqti ma lahan mid ma ogtahay qoftas aad ay u qurux badan tahay waa qof xanaanin badan faankeedana wuu sareeyaa dabeecad wanaagsanna waa leedahay dhan walbayna ka dhammaystiran tahay waana 24 jir macaan badan ayaa sameeyay runtii sheeg ha been laakiin yaa ku baray kaalis kare ku soo baxay okay wax walba waan u jeedaa laakiin kareemkan waxaan kugu keenay ma taqaana adiga maxaa dhacay Campbell aniga maanta deganaan ayaan dareemayaa waxaan kaloo dareemayaa inaan hore u socdo haddii aan asaga waayane waa maxay dhibaatada ay leedahay moogtahay waxa aadka u wanaagsan ee dhacay 5 sano ee aan asaga waqtiga la soo qaato farxad ma dareemeynin hadda ayaan farxad weyn dareemayaa yaa sameeyay baasha manish miyaa sameeyay hay adiga shukulaatada maxaad u cunaysaa maba jeclayne in maanta quraac kale maba jirto shukulaatadana quraac noo ah shukulaatada sideedaba stresska ay u fiican tahay iyo stress haya aniga wax stress ima hayo okay stress inuu ku heen aad ayaan u faraxsanahay dhageysta aniga shaqo badan ayaa ii taal haddana waan baxayaa هاي إيه راح أسأل لك أنا دول شيء نسكسيعنا مدة ذاك العوان إسراعنا حفلة أيانا آذينا وانباشالينا أنت يا ميان آذينا وقاعدة هاي بل فيري هاد السيدنا اوكي سو ماهي laakiin intaanu shoobin saaxiibay intee ka soo samaysatay meel aan soo dhaafo ma lahan ku dhaad dukaamada magaalada dhan waa soo wada tiriyay waxa rabaa inaan isteelkayga bedelo noloshayda hore dhan inaan iska ilaabo oo bedelo ayaan u baahanahay sidee idin la taayne beel waa hore ugu saaxiibay teeda kale ma xasuusta markii ugu dambeysay aan shoobin samaysanayne war adiga maxaa way dhibaatada ku haysato manish adigu waxaad rabtaa mar walba inaan iska ooyo noloshayda hore aan soo xasuusto laakiin midaas ma dhacaysaan ku dhaa hore ayaan u soconayaa
istubid haddaba ogow aniga nin wanaagsan waan helayaa qof wanaagsan maahan mid kasii wanaagsan ayaad u qalantay iska ilow marka ninkan حاجة عصبة وباهي أملنا كالي فيري بل هيا باي حاجة عصبة وباهي نتصومها ها لكن قف قراودينا ما صار سعداني ها ان ايد في جاية صوص عطا مقتا أنا وحن شقوق سعودة هذا البات محارة عبيس ودا ما شقك ويساني مايا شقدان شقك ونكسن أي بوسكي سي هذا البات أنا كشقينا هذا كدب هاي مركا أنا قرستا عقبها هيا مركو قدام بس قبر الوكان أباها يا ناروس كديدي أن أبا فيري حق وحبا قونا يا قي أرد مش قرنا أنت جوجي صح صح فيري يا قي باكع صح أباي كالب هالكاني مو أن بوجي أو إسكول كما أدين مياه يا قي عنقز قعنتو أكو ديجي وينه دور كيلو صلاة بنا أسجع واي هاي مركو صلاة أنت ذا نسجسية أني جرسي أباي بامبلان لعقت كود حقليا واي هاي وسيب بحانيك اوكي سيلاليا ولا لكن asiga hay darabaad xaguu ka dagayaan jabri saaxiibkiisa walaalkiisa mees joog oo eedo gormadi ma daadiga aniga imikaani waa maxay sidana gacmahaaga waxa ku yaala hooya xogaa bur ii dirsatano maradiga shaqaas miyaa lagu diraana nin weyn baa tahay imika oo shaqaynaya waxaas caadi waa ii deeqay si sheekaysta anigana soo qoysanaya okay xasuusataa daarusalaam eedadii la odhan jirayna inantay dhashay ay ka shaqayn jirtay meesha joornaalada imikana iska daysay shaqo wanaagsan oo SBI ay heshay oo kanaanda ay ka heshay bishiina 35,000 ayay qaadataa ka war haddaan Rama Krishna ku darsanaana waadna la socotaa 33 sano inuu jiro guurkana uu ka habsaamay marka adiga ka soo dhamay anigana wax walba dhagayaan ka dhigay hadda shaqo fiican sahli xoogaa yar waqtiga siina shaqadan fahmay iska dhaaf naagtan hadalkeed wax baa ka dhiganay wiilkan hadda Janisan siina saasan oo wanaagsan حكوا لنا صدق مقبت حنون ما هوي وهي أنا قلت حبان دريالين ساعة حافظة عذرت كاد lacagtana isaga u gee annagana halkaas nagu iloowa hana soo eegin baan kugu uri imikawa hooy aabbaha markuu ku guursada kadib eedda waad isku dhacdeen soo maaha waan ogahay arrimahaas aabbayaa ii sheegay mideeda kale adaa mar walba u tanaasuli jiray aabbaha dartiis ayaan isku dejin jiray anugu laakiin inankayga haddii soo gaadho waxba isma dejinaayo cidna uma aabayeelaayo codkaaga halka xanaaqo ka muuqdo waaba laga cabsahaaba dhegayso hoos tag boorsadaada iyo alaabtaada soo xidhxidho war arad haaye isaca maxaad la fadhidaa war arad रंग
dhiib anigana hal galaas fiiri weligeyga aniga halkan kuguma arkine marka ugu horeysa halkaan imaada miya adiga see kula tahayne sidaasay la tahay ay warka isii adiga mii xog baaraysaa may laakiin adiga ogo dabka inaad kor fadhisid yaa uma jeedid meel la ciyaaraysaa adiga maxaa diidaya haa 6 beeg markii aan ku dhufto kadib inaan ciyaaro ayaa caadadeeda laakiin waan necbahay xaaladan inaan nolosheeda ku arko aad ayaan u necbahay qofkii aan waayay dartiis aniga sidaan uma noqonin ee xishmadda nolosheeda ayaan waayay aabbahin aad ayaan ugu xiisay تعرف مطر على لها كان سك اسكاديميها هاي والله وان في عنها اديك ساتها انا في عنها سقل ابو انا محن ربك سي بوستاجد انا كو اماده لكن وقتي اي سامحي واي مقتاح abo si umaleysd maaha guriga waa shidan yahay aan ku dhahay dukaana ku dhegan qaybta oo tababarkana waa ku dhegan yahay dukaanka ma ku geeyahay guriga ka waran xaaladiisa abo bal waa guriga sax balse aabaha wuxuu rabay adiga xarunta tababarka inaad tagto kadibna aad shaqaysato soo maaha wiili maabs daba taagan yahay yaaqay ana cunug yar ma ahay markaan waa weynaaday yaaqay wax walba aniga hadda go'aanan ku gaari karaa qorshaheygana iyo nolosheeda ana maareehayo يا دق لهذا حنس وطا أذوقي وحسربا نولشيس إن أنا كوسوبيرو أنا جنا وحن ربا لأن يرتمل إن إسكسارو وحيابها سبوه أنا حساسيا بكخاذا وكخرس بحا أدوك هذا مدة ما فهمي كرتي بس أباها ما دوني هذه مشاركة وحاوروا مركي ودقوه ganacsiga saadiga inuu ku galay hadda aad noqotin wax qabsanay waa inta soo kaliya adigna waxa malaysa musharkaaga inuu rabo taas ma karono aan ina iga sheekeenin walaalkayga iga weyn leh ugu sheekaysay way noloshaada dhan la qariba gabar waxa lagu daraa oo noloshaada ba aan anfaceenin lacag dartiisa sheekadan loo sameeyaa maya allah haka alla aniga ku jiri abuu koode waxa yeelay ana wax badan kaaga sheekeeya had baxs diyaar soc hadalkaaga ma leh aniga marabani iga daa abuu hadda waxa ay sheegtaa quraac wixii cunaysid oo kaliya aan ku sameeyahay idli way ugu filan yahay waaya maxamed bante قال لعكتن قاده ما ابو هايستا بس يقول فيلم ابو هاي حصداه يا maxay maalintii ugu horeysay shaqada inaan ka daaho marwaaniga soo dhaqso idla dherigi wadaha kan kale ku soo qaada balan wala igu dar dadkan waalan idin niman aan le maxay ku soo diray ka kale subax wanaagsan mudane aniga samar oo kaliya igu yar hadda waxaan kula kulsiinayaa qofka adiga mashruucaaga madaxda ka ah laakiin waxaa loo baahan yahay arrimaheeda inaad wax ka ogaato هاي سمر هاي بانو سودو ninkan waa Ram Krishna maanta ayuu soo shaqo galay waxaana loo baahay mashruucaaga inuu caawiyo ka noqdo waan salaam marwo magacayga waa Ram Krishna shaqadan qabanaa waa markii ugu horeysay aniga horta adiga shaqada qabanaysa aqoon ma u leedahay mudane marwo banno oo kaliya igu yeer hay samar waan sii baxay waad mahadsan tahay isbarashada ma dhamaanino maya marwo laakiin anaan dhammaynahay banno oo kaliya iigu yeer hadalkaas horaad ii dhahde
baana oo kaliya in laygu wacayaan jeclahay ها magacaaga dhammaystiran ii sheeg haddii aan kuu sheega maxay soo kordhinaysaani muhiimadaada waxaa loo baahanyaa shaqada inaad saarto okay macaamiilkan u shaqaynayna waxa uu u baahan yahay iyo waxa uu damacsan yahay soo ogow English marka la dhaho jilbahan ka jaraya waa ku barya adiga waqti xaadirkan adiga maxallin kartaa hawsha please war maxaa dhahday hawshaan oo dhan aniga kaliya ayaa xalinayay adiga sidaas darteed ayaa lagu shaqaalaysiiyey hawshaada haddii baan aniga qabanay adiga maxaa laguugu wacay noocan ay shaqaalo nooga dhigayaan bal fiiriye هلا مني هاي بنو موردة سينا عادي وإيشك واحد ربطه صحيح وحيار وأنا كوشيغو وحاجر ويلا جدو صاحبيين أنا وهلا قاعد فيسبوك قلي أيو سبردن كوارك وحدا قفتها لي جيبوا نوع صادكم مجرى لا في قيمة هذيك مركز أيو قصدر أمريكا دياف وقت هذا وهاي هاي باي naxas mihi oo jaaniskoo helay ka ordaaya sidaas ay tahayna jaaniskan helay kuma degdegaayo qof ajnabi iga oonan aqoonin ayaan la kulmaya tan soo cajiib maaha dadka qaarna yaab ayay leeyihiin inaad shidantaasi aad u ogaato maba ku soo fiirinayaan munni aniga hadalka ma diidi karo ahaa waa la socdaa ibna adeer ayaa tihiin ma inay dhahdidna way kugu adkeed jaamacadda bunaa ayaa MBA ka qaatay waxaan usoo shaqeeyay kambil la yidhaahdo Bifix waxaan sameynay moobilada iyo waxyaabo la mid ah 2016 waxaan bilaabay India Times xoogoo sheekooyinkayga ayaa iska qorqori jiray ayay tii ay ugu yeeri jiray dadkan xoogaa meeshan kala socon jiray taas aniga dhankayga mid ka wanaagsan ay ahayd sigaar ayaan cabaa waan ogahay inay xun tahay sidaas ay tahayna jim ayaa sameeyaa si neeftay isku bedelan qabrigana cabitaankiisa ma joojiyey jimcaha ilaa isniinta asxaabtida ayaa mar walba waqti wada qaadanaa lacag fara badanna waa qarash garayaa fikradaha ila isla wadaaga aaday u fududahay inaad shaqo adag qabto oo aan baashaalo wax kale mahay waa inoojisay tookadan dhankaaga waay maxaa ku keenay adiga gaari ayaa ay keenay C43 AMZ Mercedes kalarku ahaa kalarka madow waan islahaaba sideena caadi leh wada kulankeena sidoo kuleeyahay ii sheeg bal ilaa hadda kama fikirin haddana هاي بانو وأكو فرحسنا إنه أكو أرك وقت هراء يكادم بصاحبه هاي مدة اسماركي صاحبي وأكو فرحسنا هالكا إنه أكو أركو سيدو كلي واكن ويلكي جريهان لقصا أيو وين هذي لقصا أيو كرها نكان أكو برا أوكي صاحبي أكادي قفت عني يرانتن أي صاحبين في جوا دان درسكوهن دتسكو دريان أفر مالو كلين وانكوين هاي ما sidaasa saaxiibay siraajna aawe siraaja siraaj waabkan halkan ayuu joogaa baano waan fiicanahay ninkan ramo waan aqaanaa saaxiib sidee tahay ugu dambeyntii farxad ayaad ku wada dhammaysanaysaan nasiib ayaad leedahay maxaa yeelay 30 sano ayaad ku guursanaysaa boorkana waxaa lagu soo qorayaa nasiibkaaga wax la filayaysan ahayn boor weyn ayaan soo dejinay okay dhibaato malan waan sii bixinaa baashaal wacan okay bye bye saaxiib waan kaa sii tegey haye bye saaxiibey
maalinta wanaagsan siday u taalo maba aqaanaba balse maalinta xun hurdada intaan kasoo kaxaya ayaa iga xigta warkan xun maalin walba ii soo yeeraa iise markaa la shaqayntiisa aniga waaba dhibsaday waana meeshan adiga maamul ayaa ka tahay sidaa u dhaqmaydana looma dhaqmo waa inaan anaka karti la soo baxnaa barno waxaad iga warantaa rama krishna qaabkiisa waxaa loo baahan inaan tababarno arrintaasna adaan ku xil saaray ها inankayga sidee tahay hooy waan fiicanahay wax walba okay waayaan ku dhah qof baanu la dhaha ayaa booskayga ah shalna shaqo cusub ayaa la ii dhiibay baanu yuu yahay ma nin baa muse waa naag maya hooy yaqaanin maaha naag waay baanu matiyaa la dhahaa hooy waa magac fiican soo marwo ma aha may hooy ilaa hadda ma gursan hooy aniga ku soo wacay waxay sugiyaa bye waa ware qoorta maxaa kaaga dhacayna baanu kulankii chemistryga wax ka soo baxa ma rabtaana blueprintiga ka hor soo lama baahna inaan macaamiisha la kulanno xusandaraani waxay dhehaysa macquul waa arrintaas arrin kalena waa ay jirtaa riboodyada a b a c iyo e m e a labadu waa u baahantaa soo maha hore iguma aadan sheegi moogtaha rama krishna macaamiilkeena ayaan kulan la qaadanaynaa sidaas darteed waxaa rabaa aniga wax walba sidaan kuugu dira inaad u samayso waxoo dhanna gacmahaaga inaad ku xaliso ayaan rabaa weliba sida ugu dhaqsiyaha badan haddaba la socsano darna garab ma weydiisan kartid fadhiiso laakiin surandar waxa uu dhahay moogta adiga laakiin ingilishka aniga forta kumay sidoo kale uguma hadli kara haddii markaan adiga hadleed bele ahlayd rama krishna haye akhyaarey maalintiina ka warama caadile adigana maalintaada ka waran u xumeedaan ku dhahay bal fiiriya qoortaan way xanuunaysaa xataa kama nuuxsan karaan ku dhahay aad ayay ii dhibtay idinka iska warama bal maxaad haysiin saaxiibey maxaa hay lahayna gurigan iska joognaa caajis leh yaaqay anigana mid xun oo isi badan xafiiska aan ku arkayne runtii ii sheeg maya saa u malaysa waxa ma jiraya yaaqay ninkaas waan tababaraa oo keliya rama krishna ayaa la dhahaa tanaaliyona ka imid waaw madadaalo fiican madadaalo yaaqay ninkaas aniga nolosheeda inuu madadaalo u noqdo maba u baahnaba xilligan miyaad madadaalo u baahanahay ninkaas xafiiska ayuu iigu imaaday ingiliishkana si fiican uma yaqaano inaan tababarana waa la iga rabaa no way macquul maha bal fiiriya wuuba igu soo darsaday aniga miyuu igu soo darsaday yaa awood u sii inuu igu soo darsadana muxuu ka wadaa abbaa iska aqbalno maniish kaalay bal arka fiiri bal sawirkiisa waaw aad ayuu u qurux badan yahay sawiradiisa beel waay ka imaaday yaqeen noogu wacno guriga ha nooga yimaado yaqeen ninkan ma jecli xataa agteedina haddii aad wacdo baashaaloo noo noqonaya minish u sheegno abbaa noo wac waa ku baryaa warmaya maraba ninkan agteediina ka horkaso idiima sheegin maxaa idinku dhacay ha iloowiya kuwateeshika inaad u dirto anigana inaad ii soo gudbiso okay adiga shaqadan maxaad u qabanaysaane anuu soo shaqadiisa laakiin anuu maanta waa uu baxay soo maha sidaa taa qof kaloo qabanaya shaqada ma jirin ani inay dahda ayaan diidaay maxaa yeele maanta inaan wacna ayaan ka rabaa soo maaha haddaba waa inaan wacnaa qarashaadka riboodka diyaar miya waan gartay daatooyinka diyaar waa soo maaha kaale adiga ma rabtid miya inaa wacdo maalin kasta aniga lee maa wacayo bal ka war xafiiskan haddii aan ka maqnaado yaa wacaayo hi tiim sidee tahay
idinka sidaa tahay adigu ku weydiinaya haa mudane waan ku salaam aniga fiicanahay waxaan rabay inaan ogaado the project heerkooda marayo ها meel fiican ayuu maraya adigana emailkaaga ayaan kuugu soo diray haddii aad rabtana waan kuugu soo celinaya waayahay daatadkaada diyaar miya maya taas xoogaa muddo ayay qaadanaysaa dadka xafiiska jooga oo dhan 4 maalmood ayay maqnaanayaan wayna baxeen dadka xafiiska jooga ku baxeen shaqaaleydan maxaa dhacay ها xoogaa sabab ma jirta waxaa jira dadka idinka sidaad Christmaska u dabaaldegtaan oo kale anagana sidaas oo kale ayaan u dabaaldegnaa dadkan 4 maalmood ayay maqayn magaaladooda ayayna ku soo baashaalayaan waad mahadsan tahay sidoo kale bye aniga Englishka ma ku hadli aqaan mogtaa laakiin waa fahmi karayaa asiga waa maqlay mogtaa markuu dhahay maxaa loo suga caawa bas haddii aan ku baxo beri lagama yaabo mogtaa in aan idliga socon maxaa yeele waaba daaqaa waa aniga tacbaan aan noqonaa bise waada haddii aan dhaho bas iyo diyaaradan u raaco labada waqti ay igu dhumaanaya banti baawarkiis haddii aan qaato adina hore aan kusii geey baalamaho barsaad يا أخي تجي أنت دقدق وبانا إنه صاحي يا أخي العقب أنا ضيت حتى وبيحينا سوا يا أخي برسات أنا تجيت كأني جمروي يا أخي واحترن كي أمر تسبحنا وباشالي كرنا وأكتمو يا أخي شيء كدر واجد جاونا يكون ما يسا تجيت كي بوكر هذه أوكي صاحب هل ساعة تبي سوا مدة كله للذي دارت يديار هدات يديار ويزيد محاوجات تفتضن دبض كيكلنا أنا دياري وحزن إسكاداف هذه مخربتي وإيمايسا ولا هو مو ميجن بيس ورا جرا مر يقصوا ده عاو بيق سينا وقول قال أرك وباشالي ناوي هاي صاحب كي ما هذا مروال بخرك يجي توري جرتي gooba goormeed aadeen gooba haddana inaan ku soo wacno waan damacnay laakiin xafiiska ayaad mashquul ku tahay ها laakiin kii macaamiisheena ahaatay wuxuu dhahay adii Ram Krishna iska baxay ilaa 4 maalmood ها laakiin idinka iska soo baashaala markaad imaadaan ayaan is arkeenaa saaxiibay berit iska soo baxno maya berita ma soo bixi karaa adii manish waqti iska soo qaatay intaas ayaaba igu filan okay هيا أصحابي اسكت باشارة دمشات كنا هذه وعناده مركز ولا بطن أين سركينا أوكي وهي اسكت حدر باي وحلو قلت استوديو أصل walba aamusnaanta ayaan xal u arki jiray balse hadda kelinimo ayay ii horseedeen mana joojin karo su'aalaha aan nafteyda weydiinay saaxiibkee soo dhaqsa bas waa kaa tagaysaa sigaar mar dambe musqusha ku caawin okay dhigay saaxiib naftaada go wayna fiicnaaleed hadda diraacleed aabbahan oo ku farxaa arintaas asxaabteydan ballanka qaaday caawada inaan biiqsano beryan u tagaa habartay dhib ma leh ka baxa buu ya waaye hooy arintaas aniga ma ku qancay may waxa uu sheegin waqtiga iska dhaaf firi baanu ay soo cus animada soo wacda baano yaqi taleefanka dadka way dhibayaan ku dhahay waxay ahaataba hadda xageed joogtaa aniga hadda meesha basaska laga raaco jooga saaxiibkii cabitaan badan oo soo qaad meesha waa la xiraa hadii kale ya waaye ka bax sureesha ay soo wacay dhageysa aniga waanba wareersanahayba waxaan ku fikirayaa guriga maad aadaa mise hanina ku sheegay maarta waxa wanaagsan guriga inaad aado maxay waalidiinta xitaa aad ugu farxayaan moogtaa okay shanta subaxnimo haddii aan baxno fijay waadaa goormeyn tegaynaa 10 waan gaari karnaa meeshaas waayahay haddaba berita shantaan kulmaynaa ama intan waa baxooya iska dhaaf adiga go-aanka isqaadaa asay u taallaa laakiin adiga noo soo qaataya kolley waa arkaynaa siday noqonaysa haye baabay marxaba هاي صاحب انا كان هي انت baanu ay soo wacdo kuma dhihin marka berito waxay rabtaa adiga baawurkaaga labadan inaan ku wada baxno jawaabada ku aadno beelamaha hay og sugay had guriga si aadana keen aaj gira warkiisi soo socda
laakiin raam karishna ay la socdahay cabitaanka waa soo qaadaysaa baartimentiga gelaysaa waa soo soceysaa markii kale koro koraysa koro ku cabaysa tartiibkaaga iska biiqbiiqso hyderabad inaan uga sheekeeya ayayna rabaan ma ogta adiga tanaali boos oo secret ah ayaan ku lahayn oo hal mar dhammaanteen aan isugu imaan jirnay meeshaas cabitaanka markaan cabeen waa ku dhuumi jirna no haddaba asxaabtaada maxaad u sheegaysaa meeshaan shaqo maala yacni in lagaa siiyey oo lagugu bahdilayaa may sidaa ma hayaaqe aniga xafiiska aad baan u jeclaa waana ka hela moogta isla markii meeshaas aan imaaday soo dhaweyn fiican ayaan shaqaalaha kala kulmay dadka meesha joogana waa dad aad u aqoon badan weliba aniga aad iiga wanaagsan markaan la shaqaynayn wax fara badan aan ka bartaa nolosha marnaba lagama yaabo inay ku saamaxdo wax walba wanaagsan ay ku barto balse hadda wax wanaagsan oo aniga cusub ayaan baranaya aniga hore ayaan kuu dhahay keyti ka qadbiriti mashruuc cusbaa maxaa ka soo kordhay waxay dhahday maalmaha fasax kadib ayaa la xalinaya okay iska ilow hadda adiga ayaan ku siinayaa keyti isniinta ayaana bilaabaynaa magacaaga ma ka heshaad in lagugu yeero haa maxaa dhacay maxaa dhacayni macnaha kuuma qalmano magac noocaasi madax waa waayahay magac noocee ka fiican anjali darshani kafiya samyugta adiga xataa magacaaga mid fiican maaha waxay ahayd in lagu dhaho sarnafaas goobiyo kale muraali rafi jagdiish run ahaanta magacaaga adiga aad ayuu kuugu qalmaa rama krishna sabar u yeelo markaya muddo 3 biloodan wada joogna hadda igu horeyso adoo qoslaya waa kana gurigeena gudaha ayaad ku baakimi kartaa iyo gudaha ku baakin haya qorshahaaga muxuu yahay
feestada socota miyaad imaanaysaa mise isbuuc dhamaadka ayaad imaanaysaa maya run ahaantii moogtaa waalidiinteeda aniga gabar ayay ii doonayaan gabadha waxaa la rabaa marka in layska soo fiiriyo maadaama aniga qoftaan aqoon waxaa la rabaa moogtaa inaan iska soo jeegareeyo oo backgroundkeeda aan soo ogaado markay taas dhammaato waxaa la isla qorsheena haddana bisha arooska uu dhici lahaa marka waxaa laga yaabaa feestada kadib le inaan imaada ka hor ma imaan kari adiga qorshahayga hor haddaba qorshaha ku darsanayn inaan isla laabano iska bax aabbahay ayaa safarkayga diyaarinayo maalmaan qof cayila axmalaya u egtahay gabadheeda maxaa dhacay hooye waxyaabahaas maxaad igala hadlaysaa isfiiri bal adiga gabdhaha daadaada intay guursadeen ayay farxad ku nool yihiin adigana bal isfiiri hooye haddii aan aniga guursanin macayilaaya gabadheeda madax adeega waa laga roon yahay hooye iga dhaf yaqay waxyaabahaas adiga iyo roohan gabadheeda waayahay adiga wiil fiican inaa raadsato waa keensanaysa soo maahan aniga ayaa wiil wanaagsan kuu raadina waan kuu guurinaya okey soo maahan gabadheeda hooye waan ku baryayaa arrimahaas ha igala hadlin haddii kale igaba aamus adigu jiimka maxaad u tegi weyday inaan tago aaba xafiiska ayaan ku mashquulay jaanisna waan u heli waayey jiimkao dhan waxaasoo dhan waxay u muuqdaan maadaamaad adiga saaxiibkaa kala hadheen diidma aad diidan tahay la kulankiisa ayaad waxaan oo dhan u samaynaysaa soo maaha waxay ahaataba xaaladda iyo dhibaato kasta aan ku qabo aaba mala soctaa 3 jir ina aha ayuu i xasuusiyey weligay da'deeda dhibku maanan qabin laakiin si lama filaan ayaan ku kala harnay raam asagaba 30 jir ayuu ahaa nina taa micnaheedu wuxuu yahay ninkaan wanaagsan la'aantii inaad noolaan karto soo maaha okay waayahay sidaad ahaw waxaan arkay hooyaday oo ducaysanayso aadna way u qurux badnayd asaga si sax ha iigu sheego ama si qalad ha iigu sheego waxaan u arkaa inuu yahay nin aqli badan anigana waan xiiseeyaa ragga sidaan oo kale u aqliga badan hoose jaaya adiga iskale macmacaankan magaaladeena ka keena caanay ku yihiin hoo saaxiib afakaayaa la dhahaa adiga iskale macmacaan waaya waa laisku leeyahay sax waa timid mi adiga waxaa loo baahnaa laba maalin inaad guriga joogto dhib ma lahan haddii aad timid hoo waxaan maxaa waaye macmacaan waayno hooya kuu soo samaysay wuuna ku anfacayaa dhadhankiisa tijaabi beel la waayaan ku dhah haddii aad dhibis waa ka helaya iimaylo fara badan ayaa soo dhacay anigana madaxa ayay iga galeen anigana waxaa rabaa c o b maxaa haddana close of business waaye adiga soomaha qofka iimailkan ii soo qoray hayrama warkiisii tanaali maxaa ka dhacay saaxiibo asxaabteeda waxaa rabay hidar badan igu soo boqdano anna arrintaas xoogaa ku wareerano amaama caadi waa xilliga oo bareega ala kulmaynaa ها صاحب سو هذا الرمش ما يقي وقتي ادي وقبنا صاحب qof walba ma aan soo booqan karin waqtiga ha feestadan oo imaade laakiin marka la imaana si fiican oo sheekaysanayna okay maya adoo maqan miyuu gurkayga dhici karaa saaxiib waqtiga sorry hadda xafiiskan jooga hadhoon ku soo wacaya bye hadiiba fasax ku fikiraysa iska ilow ilaa iyo bisha soo socoto
haye ma qorshaysataba iska ilow ayaan ku dhaaf fasax iyo waxyaabo la mid ah laakiin waxaa waaye hee maxaa waaye 2 bil kahor ayaan hooyo waxaan dhahay waxaan geynayaa tirobati waxaan u bukin karay sbraafata marka inaan wado wayna waayahay jimcaha ayaad bixaysaa isniintana waad soo laabanaysaa ha jimcaan baxa isniintana horaanba ka soo laabana xafiiska imaanaa koobiga yaraya markaan imaado waxaa xasuus moogtaa inaan meeshan traininka ah markii aan tanaali joognay dadka waa la yaabi jirnay halaan lacag maxay u bixinayaan dhii jirnay balse hadda waan fahmay waqtigaaga iyo maalmahaaga ayaan ka fikirayaa markii aad guursato 6daba guriga ayaad ku cararaysaa dhaqsana waad xaroonaysaa sida dadka ay sameeyaan aan ku weydiiyey guurkaada goormuu dhacayaa ar maxaan kuu sheegayaa qeex ani aroos inaan nasiib u leeyahay in kale xitaa ma ogi hee maxaa dhacay waxaa waaye kii arooska maaragtay dadka isku keena da'deedu been ka sheegay 29 uu sheegay aniga waxyaabas inuu sameeyay anima ogeynba balse kii faallooga ahaa faalka markii uu fiiri dhibaata oo banaan ka timid maxaa waaye gabadha la ii doono bidiido maxay waxay ogaatay inta iimalinaysan ka weynaa okay gabadhaas waxay ku diidamiyaa maadaama aad saa'id uga weyn tahay qorshaha cashada ka waran ma ka cabsanin dhankayga waa lacagta anigaa bixinaya soo bax mootadan xagga nooga soo baakin maba ii sheegeen ba halahaana murugaa gudahaaga inay ku jiraan hay soo dhawow gudaha soo gal ama heegan ka wanaagsana iska daa guriga qaybtiisa kore ma tagnaa waaya wax yar isug Jess. alaabaha kulul ma cabtid miya waayahay maxaad iigu sheegi weyse mar hore kelinimo kuma qurux badnaan isdhahaya ragga inay qamri cabaan waa caadi balse dumarka inay cabaan ayaa qalad ah barnaamijkan yaa soo dejiyey yaqi maskaxda ayaa laga keenaa wax walba maskaxdaada maxaa ka dhex guuxaya aniga labada qofood hadda oo hoosna saaxiibada haa kuwaasa iishaa waxaan isku baranaa bangaloor kadibna galaas dabaasha lagu barto ayaan isla dhiganayna maniishna waa iyada gacaliyaheeda muddo 1 sanaana way isla nool yihiin ma isgursan doonaa marka taas yaa oghe balse laba qofood haddii isfahmaan wax dhibaataa kama jirto wax garad camalaad u hadlaysaa runtii la yaabay ila tahay naagsaan u caqli badan inaan la kulmay ما ساس كم وضع معناه أمان لأقاضه بقادين لإجاهد ناديجا قفت كديدي سجبر أي هاد صامهن هدي جبرتها معك معنا كورنا قد وحبي اسم الدور شاليري أنا جواني سوق هاي وجي اللي يقول صراحة أنا اللهين وأساس أنا قروح بدنين سدني سدح جيران هاي تناليا كيمد lacag fiican oo aan shaqaysto ii safe garaysan meel iima taalo laakiin taas macnaheedu maaha inaan madaxayga hoos geynayo oo aan sharafteeda hoos u dhigayo sababtoo ah lixda taama waa shaqaysan karaa wax walban u baahana waan heli karaa wax un inaan shaqaysto wax la'aanay dhaantaa soo maaha sidaa darteeda gabar haddii aan helo sidaana igu qaadanaysa farxadan ku noolaa lahaa qof xigtii qaraabatoona aadan wadaagin haddii isaga kaa fogeyso caadi waa balse qof aad xigtatiin haddii isaga kaa fogeyso xanuun waa soo maaha waana sababta keentay si ola kaca inaan arooskan u soo diido waxaasoo dhan kaba soo tag yaa waa qofka aan lamaana doonin hayraam krishna adiga hindi ma taqaanaane maya tora xogaa leh xoogaa hay ingilishne
waan fahmi karaa taas facebooka profilkiisa fiiriye moogta sawirada qurux ayay ahaayeen qaasatan sawirka aad gabadha shuminayso aad u qurux badnaa waa ka helay ma gabar ima shuminay aniga mid saaxiibkay oo kaatiyaal dhaha jira mogtaa softwareista waa sawirkayga iyo sawirkeeda oo isku keenana oo sawirka feego ahaa miya ha feeg waa hay adiga gacaliso ma leedahayne ma gacaliso ma lihi laakiin aroosaan raadihoya toos aroos dalaqa ha toosaan waa aroosah yaa qayb marka hore gacaliso samayso maya gacaliso dhan haygu soo sheegay khibrada loo baahan yahay yaa ishaan kan khibrad ma lahaya iska daa u bixine mahadsanid walaal rama krishna asxaabteeda xumaan hoo arkaya ayaga way cabsanaayeen waxay rabaan ay ku hadleen may caadi waa bano qof sidoo kale ah weligood lama kulmin marka waxaan dhihi karaa aniga xoogaa gedisnaa laakiin labadooda aad bay isugu wanaagsanaayeen qof walxun ma aysan ahayn xoogaa wejigeeda wuu dhalaalayay laakiin adiga sidaan le maxaa positive ugu tahay kuma caajisaysid miya may sidaas uguma sii fikirinba aniga waan cabsadaa qosolkan sidoo iskama joojin karo isla sidaasoo kale ilinteedana maba xakameyn karo sida hooyaday oo kale run ahaantii dadku igu qaylin jireen markaan yar ah waxay dhihi jireen wariyaa gabar maataa sida gabdhii maxaad uga weynaysaa kadib walaashay ayaa dhalatay iyada xitaa way igu shactiraysan jirtay gabar kaa yar ayaa kula dhalatay miya nalama noolana si xumo waxay jeclaatay nin krishtan ah waa uuna ka fogaaday iyada intay duugantahay 5 sano waxay buxsamaysaa agosto markii la gaaro mana aqaan qaab aabe aan wajigayga ku horgeeyay maxaa yeelay sababtaas darteed ayuu u maleeyaaba inuu iigu heli lahaa gabar aan guursado hal talo ayaan kula wadaagayaa inaan boos ku aha maaha baanu ahaan haddiiba aad qof jeclaato waa inaad xushmaysaa maxaa yeelay xushmadda ayaa u muhiima dumarka oo idil أشوف وراك على محافير يوسف وحبا صاحب وراني وجودها ام بي تي في كشيدانه ما يشيك تساحي ويغرني ان صاحبك بنتي waxaan rabaa aniga English in aan barto wax walba ay ugu qaato 5 sano hadii Ingiriisa saaxiib 3 lawaa fiir 3 daas buu qanacsan yahay wariyaaw 3 sano hadii oo Ingiriis la'aantiis ku noolad hadda maxaa waay qabadka xiran maskiintan banoo aniga dartee ay macaamiisha English ula hadasha maxay aniga Englishkayga aad u wanaagsan kuma hadli karo oo haddaan ku fahmay waxaad rabtaa macaamiisha ku imaanaya English ina ula hadashid ma saas rabtaa Ingiriiska inoo booska markiis ka hel asku wada USA asku geeyo ma aragti war ma ku sheega waxyaabaas waa laga fiican yahay muqdishadaada iska joog asalan iska biiq soona asalkaaga iska joog waa lagu soo waca hay ka dheh maxaa jira ilmahaaga la hadal Facebook sameeyaysa anaba ku jooga ma Axmed Cumar Shaamno ku soo dhaweeha khabt misin waa leedahay laakiin gudahaaga qashina ku jira ka buuxa wariya fuluc war ma ku sheega waxaan ka baxan ku dheh caadi matiid miya adi hadda Ingiriisi barabta miya saaxiib maxaad isan wax shaqada milka sheek am dalbada ilaa hadda ma liikeeni maxaa waxaan akhri waay marka aad ma dalbanna waa imaanaya oo kaadi yaqay maxaa wasan sababtaas kalima sabab kala jirta asxaabteeda kolka igu dhageysooyin aan ku dhahay telefoonka xataa miga qabanooyin adi intii soo arla gelin ka hor ii ka iimaan waa soo jirsaan waa iska bibiqs jir gurigeyga imaa jirin waan fahmay yaabo saaxiibkay ani maadaama halkaas joogo eega saas yihiin maadaama idinka weynahay marka idinka farxad la'aan dareemaysiin taranka ay fahmaya wala waxin ka wadaya ay fahmay hal midaan sameynayna iyaga waxa dhahay wixii horna iska ilaahay labadan waa israacayna horta suuqan tagayna oo soo adeegayna kadib axadda markaan imaano maqribka cashaan karsaheena ku dhamaantina farxada wada cunayna kadib waa wada ciyaarayna waxa ku saartay axad kale waa israacayna ku dhahay وسو رينا تبادية أدينا لبنية أدينا باقة أدينا بيرلا أدينا زومو مش حتى وأدينا أوشن باقة أدينا أي مكس حتى وأدينا حتى هذا وقته هن كل قدام أدينا كم يا شوكولات ميلك شيك وها وان جعل شوكولات ميلك شيك اقرا نقد مسخوش أي هذا هذا
saaxiibow shukulaatada iyo caanaha la isku sameeyey way jeceshahay ara Hyderabad meeqa joogta aad ii sheeg be 3 bilan jooga maxme yadla noo shahay adi adaan kula noolahay saaxiibkeeyo waaya saaxiibkay diita waxaan cunaa aan jeclahay ma ka seerta adiga waxaan ku cunayn waa cuntaa saaxiib inta waraayir akhrid Rama Krishna wandana soo baxna keen wanda ogtaa wadada inay jaam tahay okay ka hadhigin kan hore abo mid kala dalbaya waa baxay haya bax jidka jaam isku noqonaysa sida ma balanaya hadhow ku imaa naag la siiya mudan maxay caawaysan caana iyo shukulaato iska soo dar sokorta ku badnaato shukulaatada ku badnaada caanaana ku badnaadaya mudan shukulaatada dhamaata dibadaadan arkaynay saytuuna ku keenaya zaytuun ay dhaade dameerka awoodaa siiso daawadayaal filimka aad daawanaysaa waxaa lagu tarjumay studio asal 24 TV markan jibsi ma jiraya macmacaankan la cunaynaa saaxiibkay qatar waa Rama Krishna akoonka daadadiisa ma dirtay haa waa dir wax walba okay waa waayana keen banaanka naadinay labadana ina baxda marabtid saaxiib mar kale haddaan wad ciyaarna beela ma hooso laba gurigan ayaa iska adiga halkan igu sug waan ku soo laabanaya gudaha ayaan galaya waxaan ku arkay dareen aanan weligay ku arkin aadna way u qurux badnaayeen ninkan aniga dhinacayga fadhiya wuxuu ku nool yahay dunideeda ka gadisan waxaan oo dhan waxaan filaya maysan ahayn waan kaaga mahad celinaya hadda waad faraxsan tahay soo maaha dadka kaa agdhow haddii ay faraxsan yihiin adigana waa ina faraxsanaataa hadalkaas qof ayaa hore ii dhahay magaciisana waxaa la dhahaa Tenali Rama Krishna run ahaanta qofka adiga ku yaqaano wuu dareemayaa walaasha inay kaa maqan tahay laakiin cid ila kulan siisaa ma jirin markale ayaan fahmay in aanan fahmi karin ragga shalay waxaan arkay Rama Krishna oo cusub runtii inaan u xanaaqayay laakiin umaanan xanaaqin
raam krishna dabeecaddeeda waa tanaa fiiri jilinkan maad iga joojisid mase sidaanaad rabtaa inaad u sii wadda adiga wax walbuu samaynaya inaan ka hela ayaan bilaabay xataa nafteeda inaan ka hela ayaan bilaabay gabdhaha aad ayay uga helaan ragga soo jiidashada leh yaaqay ha qoslin intaa qoslileed waxaa ka wanaagsan in adiga laguu qoslo markaan aniga kula hadlaayane waxaan rabaa inaad doola caddayso sidaan oo kale sidaan ayaan kaa rabaa waxaa la rabaa inaad ku hadasho hadallo qiimo leh oon qiyaali ahayn هاي رفيق هاي سيدات تايني وان في عنها بروجكتك سيدو كسعدا وقتك سوى لقوه لسوما طبعا بيلا تاي وان كهلا شقداد نحت سنت ها اوكي aniga marka la ku soo wacayo subax wanaagsan samar wanaagsan bano iimid farxad la ay soo gaaray adiga shaqo wanaagsan aad qabatay mahadsanid samar raama karashna asagana sidoo kale shaqo badan ayuu qabtay wuuna i caabiyey wuxuuna u qalmaa intaan aniga mudanahay shaqo waxan bano wuxuu u muuqda mid aniga ila qurux badan keligiisna maaha dadka meesha joogo dhan way ila qurux badnaayeen indhahaagan quruxda dadkana indhuhu waxay qabtaan markay dadka dhoola caddaynayaan intee joogtaa
waryaa markii shaqada ka soo baxday binka imaam ku dhiino ani waraan ana dhagax ii kariyay miya rama karishma gurigay imaad waabi goysiyan bu ku dhahay ma bi imaa rabtid miya demi telefoonka eeyo eegu dhali waryaa siinad dhana ii diidan oh bati warkaysi yaaqee sigaarka si qaldanaad u cawi rabtaa maxaa dabada maakashada intaynaan joogaya kusoo sheegay adi adoo madow shaar caddaan ma xirano horan kaa arka saaxib luuq ma iima leehaysa luuq waraa aday si imaada aniga dadkayga dhan waa iga fiijis ab saaxiibo maanta ma ogtahay horta qaado hal meelaan kusoo wada cunno annaga iyo shaqaalaha sawiraan soo galan noo fiiri fiiri saaxib meeshaan sawirkaan fiiri si fiican u fiiri khatar ma banuu markay dhol cadayna si fiican u fiirino saaxib way qurux badan taasoo maa inta fiiri mid kale ku tusaa fiiri kana fiiri saaxiibo waraa wax daran yahow aniga tala beesa la'aan dadka ma sii laakiin adi gof oo may saaxiibkayga tahay sidaasaan ku sii hooya si fiican waanadeedii dhegaa ugu taag makasti dhug u yeelo oy adiga waddadoo ku socotid horta war ma ka haysa kan haddii wax u sheega waa iga xanaaqa culus iyo goosaha horta saaxiibkay waxaa laysku qorinne 35 ma jirtida horta been miyaa arsad 3 dhaniyo 35 10 sano ma u dhaxaysaa waryaa hoysay way 33 naftigiisu wax yarmi waryaa wax daran aku dardare inta markii imaahays shaqale kugu qufulsaneed hadda naagaaba kugu qufulantay maalin kasta jiima sameeyhoosa waxa sameeyhoosa warniyo horta waa balayaabi aniga naagtaas shimay maskaxdaada saan u degtay horta naagtaas ani waa banaa naagtaas xun maxay kugu akhrisay ii sheeg baani waa yaabi saaxiib ar saaxiib maxaa kugu dhaca naag xun hadhan yaaqay qof wanaagsan waa qoftaas waryaa naagtaas ma fiican waryaa hoy waryaa naag haddii 22 jir lagu guursada kaale iska arag macaan waay 26 hadday gaartay labaday u dhaxaysaa 30 haddii lugaha gashatane bakti waa jida allah gabar baarti garooba karoon gabar baarta ma dhahda maxay dhibaato leedahay anaba ka daaweyn wiil baarame iyo anna say iskool ku tiin waryaa habeenkii dameer dhigtiisa lagu daraa naagta saxiibo haddii ay 30 jirtaa xitaa gabar yar ayaa ku dhex nool banno waana quruxdeeda xaalad walba oo xafiis ka taagan mar walba waa ay xalisaa iyada anigana haddii aan arkaya intaas farxad iiga filan erayadeeda ayaa ah kuwa aan marnaba ilaabi karin inay hadda ila hadlaysaan moodaaba moogtaa banno si wanaagsan in loo soo barbaariye waa gabar qurux badan caaqilad ah wax walba ay dhammaystiran yihiin wax walba saaxiib أو بنتي كالا سوفري سولو صاحب مالكن سوفري نكن بنتي الله اسكبر هذه نسي شكستي وادين سو لابنا حوغا وانكو سلامة بنتي بكاوس كورسدا ka waran boring wayan ku dhahay koorsada wax batuul allah ma ba ku jirtaan ku dhahay shit waa suuq fani ayaa tahay maxaa fani sheegaysaa shactarada waxay bilaabay saaxiibkay markii imaado jilka maanta la rabo inay shactarayaan saas camal shactarayaan hadalkiisa ha u bixin yaa kan wuxuu rabo iska sheegaa marmarna sida nin dhantay budadii biyaha kala ma saari kara Rama Krishna mo awgiisa saraaci 60 jir in siyaa loo maleeha laakiin qarni walba ku jin alla dhahay asiga uu wanaagsan yahay dadka xafiiska joogana uu ka qoslisiyaa shactarada waa miya dadka maalin kasta halkaas shactar leh ma dhigaysayaan ma kaxiisayaan miya asaga seebay ganacsiga abaha oo dhan inaad ka soo tagtay miyaad ganacsi abuuranay ganacsi maxay ii geliyay aniga dhallinyarnimadeeda inaan ka faa'iidaystaan rabaa inaan baashaalo laakiin arrintan aniga baan ku sheegay arkay ma u sheegin haddii u sheego waxaad u malaysaa waayeel 9 jir in si waani hooyo in is iga weyn yahay markaas leen ogaahaani filimkana ku dhahay caadi maaha wuu shidan yahay waaga kuleedka aan dhigan jira ayuu soo baxay filimka asalooga oo khushiima ka hadlaysaa khushi هلا باي واجي كليتك دقيس بس صباح في لك ايوه انا ما لا يرى ماشان لغا ايتوس مان ده مسكيل كلا ايتوس ما يقدرش هذا اللي ايتوس باي هرت عمري ما هليني عقلي الله نسيه كوده وقت كاس كاميرا مجرنا وملامه
kan maxaa ku hadlaayane kaal adiga haddii aan ku dhaafo maanta madoobayo maxaa kaa kale sanadkayga iyo meekaabkayga kaal haddii aan ku dhaafo aan ku dhaha maanta أنا واحد من كراي لكن ولا الكيس صاحبتي من وابد بادي هذا هذا الله هذا هاي ما حدا بنونا قوي السنة كذا ويدي وحناكتي واسكبحدي هم كده سلام عليكم صحيح ما حدا عايشك ورا ناكت دتكي هوري كهيرتي وريا ما جاي خلوه عنا بالايام وحناكتي دعد مركين ويدي ديسكاونت يا وسميها مركين له فعنا خيسين ورا ناكت فينك قشي مركين سبع كولاجا ديجيس سوي ناك وين واي وريا كوين صاحب ماشان عشاء وتمد قفطاس اديك انا وادك حناجي سناتك عطيه بح انا هنا عبست ما ربي انا نفتكي عشان وماذي واحد عبيل سوما هني هاي رامك كرشناها سوقل يا اخي سوقل يا اخي kaal inta fadhiiso soo dhawo gurigaaga haye intee gashanaysaa kuu raadinaya le mataqaanaa qurux loo adaya dareeska u watana fiiri bal haye maxaa darna ii sheeg bal maya wax sidaa weyn ma jiraan banu gurigayga casho u imaada caawo aniga jakadan ku jira cuntaan soo sameynaa laakiin kii bantu wax daran ku hadlano eedan xanaaqida wadaqani eeda wax u cunay soo baxday marka cuntadeedan soo qaaday idinka ku dhaha mar kale iska cun cuntada horta raam marka hore waxaad noo sheegtaa waxa saxda ee jiro hayra ma aragtaan isagoo dhan wuu isbedelay markuu imaanaya caadi ayuu ahaa qaabku hadlay libiskiisa intaba wuu bedelay yaaqi jawi kale ayuu galay wiil quruxlo oo kaalis kale quruxlo ayuu hal su'aal aan rabaa inaan idin weydiiyo idinka labadiina aad horta isugu fiicantiin moogtiin macnaheega nice atiin nice horta sidiina wadajirkiina wanaagsan yahay balse aniga wada noolaanshahan iyo xiriirkan micnihiisii wax aan ka garanayaa iska yar moogtiin laakiin labadiina hadhow haddii aad kala fogaataan xoogaa soo murugo ma noqonayso macnaheega waxba ma dareemaysin miya raam horta raam adiga ma ogtahay qof wanaagsan oo qalbi nadiifa inaad tahay oo aan marnaba la heli karin eeda xitaa saasay dheys mogtaa banno laakiin eeda dartii ayay usoo laabatay eedan waxba cunin tan iyo maantana gaajaa hayso haddana uma malaynaa inay soo kacayso sidaa darteed idinka waxaa rabaa markay soo kacdo cuntada inaad siisaaya hoo iga qabta bantigaas xunka hadduu mar cabitaan caaw bis waay wax roo iska sheega horta qoftaan banoomatii la dhaha dabeecadeeda way gedisan yihiin iyadii saaxiibkeeda mar dhow ayay kala tageen waxayna muujisaa inay faraxsan tahay laakiin aniga waan ogahay inaysan faraxsanayn waxyaabaad ka aragtan ruuxa qaadan arrin wanaagsan waay hadda waan baxayaa laakiin cuntadan markay soo kacda ha cuntayaa u sheega raam mac salaama bay raam habeen wanaagsan is ogoya ميمي إيميلك حاجة إيه آخره mudane waxaan ku soo diray quotationka adiga aad dalbatay waxaan ku helay howl weyn oo Mauritius ku yaalo wuxuuna qaadayaa 500 qof oo martidaada ka mid ah war waxaas looma baahne ii fur attachmentiga la ii soo diray hey ram hadliya aamus aaba ayaa isoo wacay hello abo abo disaanada aan sameynay ayaa adeer alfin u wadaa hadda abo xoogaa yar waan soo daahaya oo doctor aroskii howlahayga inaan soo dhammaysta ayaan u baahanahay waayaha abo baay oo waaba qosleysaa miyaana aabahay markaad ku lahayd lacagta arooska waan kula qaybsanaya waxaan kuu maleynayaa nin wanaagsan inaad tahay laakiin arooska intaaba la gaarina hotelkan ii keenta ka war weliba qolkan aad igu soo dhex xirtay naga tag ma la socotaa dadka meeshaas todobabax oo keliya inay u aadaan ee aroos ma ahan aniga todobabax oo keliya iguma filna ee arooskana waa loo baahan yahay maxay loo ogtahay ram dadku dhan anaga ayay indhaha nagu haayaan 6 bilood ugu dambaysa waxa ku mashquulsanaa design
halaas filim waa ku samey karta Soomaan haddana aniga mid ugu baashaalaysaana raam war adiga ma ogtahay dharkaaga isku jooga xitaa mar walba aniga ayaa kuu xaliyay mas-uuliyaddeeda ayaan gudanaya soo maahan xitaa nolosheeda dhan adiga ayaan gacmaha kuu geliyay sidaasana u hadlaysaa yaa ila arka siday u hadlayso waa qoftii gaariga markuu ka halaaba roosetada inay cunta ii ka soo dhaweyd yaa sheekada rooseta ma taagna ereerka ayay taagan tahay Ameerika maxaan ugu imaaday inaad alaabtaada xiriirta hor ku kaxeeyaa Nimi maxaad samaynaysaa yaa akhay waxa dhacay waa maxayna raam banu ayaa email kuu soo dirtay waxayna rabtaa inay kula kulanto kale xal mar aan fiiriyo okaadi bal wax ma kala dhaxeeyay ii sheeg wax ma kala dhaxeeyay ii cadeeyay qiimaya inaad ifaanto isku day wax iga la iga maskorkaygana hataaban hadda waa inaad ii kala cadeysaa yaa qiimo maxaa rabtaa inaan sameeyo telefoon u dir maxaa dhahday waxaan ku dhahay waa dhaqsi raam raam hagaag waaya banu waxaan u malaynayaa lambarkan markaad aragto inaad aqoonsatay qoftaan aniga ahay haddaba mar labaad ayaan iska kaa barayaa aniga magacayga waana miishaa babanaa waxaan ahay gabadha raam gursalow aamus joog haddaba aniga maaqan laba qof oo kala hartay sabab ay mar labaad u wada hadlaan teeda kale adiga ninkan hadda wax idinka dhexeeya ma lahan mana labaana mar walba inaad soo wacdo weliba aad tuugtuugto sidoo kale ninkan ma doonaa adiga inuu wax kula wadaago maxaa yeele aniga qiimahayga ayuu yaqaanaa hadalkan aniga keligay kuma dhahayo isaga xataa afkiisa waad ka maqli kartaa aad baad u mahadsantahay jakla sheegay jecladan ku keenaa yaa tahay adiga adigan kula hadlaaya yaa tahay yaase awood ku sii labtoobkayga inaad kala furto weliba emailkayga inaad fariin ka dirto hal mar le haddii aan ku dacweeyo mala socotaa xabsiga inaad ku waarayso adiga waxaan islahaa waa canug maskiin oo ciyaal tuulo ah ee hamiga uu shaqada ka leeyahay ku caabi adigana guuxada ayaad ka dheeraysay haddii aanan aniga ahaan lahayn xirfadaada waxaad ku noqon lahayd waardiye waxaad samaysa ayaa uu madaxay xanuujinaayo arrimaha ii gaarka markaad faraha la soo gelaysa yaa tahay aniga wuxuu ogeyn ayaa teleefon ii soo dirtay walaashii ayaadna ila kulansiisay waxaan islahaa isku mid ayaa tihiin ani adiga isku mid miyaan nahay marka maraba wejigaaga inaan sii arko haddii aad sii taagnaatana waan kaa tegayaa shaqo ayaad u baahneed adiga si aad u guursato balse hadda maraba marxaladdan inaan ku sii jiro maxaa mar walba sidaan waayo sida inankayga sidan haddaan ahay rama krishna wax magacan loo hadda noolmaba jiraba hooy inankayga maxaa qaldana sidii bisha oo kaleetad u iftiimaysaa waxaa aad u wanaagsanaa leedahay haydarbaad inaanan teginba runtaa waay
intaan noolaa weligay qof bini aadana sidaan dareenkayga uma aanan xirin laakiin maxaan sameeyaa banu waan jeclaha way jecel dhaba ayaanu qabo qoriyo way macaanista jikarka uu ku haysta runtii ii sheeg aabo walaal haddii aan lahaan lahaa sidaan oo kale miyuu samayn lahaa ma aqaano inantaydii anigu markii adigoo saa igu dhalatay ayaaba waxaan ogaaday dunida inaan wax kale uga baahnayn ma og tahay hooyadaa mar walba aniga way eedaysaa waxay igu tidhaa wax wiilii nooma joogo hadda ka aabba ahaan aan ku weydiiyo waa maxay inantaydii dhibka ku haysta adiga adigoo aan ku weydiiya inantaydii dooqa aad ku jahwareertay soo maha iishaa miyaa ku soo wacday aniga hadda waan cabsanayaa dadka maxay dhihi doonaan magaciisa ii sheeg raam krishna adeerkaa bijiye ma xusuusataa magaciisa raamaa krishnaa baa la odhan jiray asaga iyo magaciisaba way isla yihiin aabbo adeer guji waa nin aad iyo aad u degan raamaa krishna asaga xataa wuu degan yahay siduu yaha ayuuna u dhaqmaa raamaa krishna waa nin wanaagsan anigana sixna ayaan ula hadlay waana jeclahay aabbo qof walboo arkaana wuu jeclaanayaa dhibkaad sheegaysaa waa maxay inantaydii waad u tegaysaa waanad raalli gelinaysaa hadda halkaan ma jooga aabbe tanaali ayuu dib ugu laabtay yaa kuguuri meeshu joogo lama tegi karo meel kastuu joogo u tag una bandhig inantaydii waan ku aaminsanay anigu halo iisha isdiyaari maanta waan baxaynaa tinaali ayaana aadaynaa weliba hadda iminkaa waagu habarya inantaydii iska sug aabba waxaan ka cabsanayaa baanuudii hore inaan dib u noqdo shan daqiiqa ayay igu qaadatay 5 sano xiriir aan soo waday iyo ninkuu igala dhexeeyaba inaan ilaabo 6 bilood oo kaliya nin aan aqaano ayaan asaga dartiisa habeen saqdhaxaa 300 kilomitir u jaraya qof walba oo arkaana aragtidayda ayuu igu xukumayaa maskaxiyan markii loo fiiriyo way saxantaa balse hadda jawi aan kaga fikiro kuma jiro fikir waxba isku daalin aniga booskaaga haddaan ku jiri lahaa sidaas samaysay ayaan samayn lahaa run ahaantii farxadda looma wada sidna qof walbaana waxay farxaddaada ku jirta ma garan karo halka qof oo farxaddeeda waxay tahay yaqaana waa raamaa krishna asaga darteed safarkan uma gelin ee nafteeda darteed ayaan u galay
haydarbaad goormeed imaanaysaa adigu halkaa maxaad ka soo doontay waa maxay qaabkaad iila hadlaysa maxaad si ii soo wici weysay ma doonaya inaan kaasii hoos shaqeeyo wax jawaaban ku hayana ma lahan keligay inaan ahaada ayaan doonayaa sidaa darteeda bliis waayahay waad ii xanaaqsan tahay soo maaha waayahay dhegayso iga raali noqo si xun ayaan kuula dhaqmay adigana hal eraya xun iguma aadan jawaabin waxay ahayd taas inaan kugu qiimeeyo waxaad dhiiritiso ima dhin haddaba iska bax meeshaan isaga tag ilaa iyo hadda sidan miyaad iila hadlaysaa xataa haddii aan habeen saqdhaxaa adiga dartaa safarkan dheer aan u soo galay ma doonaya dareenkaaga inaan dhaawac u geysto sidaa darteed hadalkayga inaad maqashaa ku wanaagsan waa ku baryaa meeshaan isaga tag markii ugu horreysay aan kulmayna sidee ahayd qof faraxsan ayaa ahayd qof dabaxsan oo sabar badan ayaad ahayd qof walbana waqti ayaad la qaadanaysay waxaan u haystay inaad tahay qof qaasa xataa aniga si qaasa ayaan kuula dhaqmaayay mana aqaana inaad wax ka fahantay iyo in kale anigii soo fiiri muddo 2 maalin ayaan waddada ku soo jiray cuntada xataa waa iga degi weyse habeen saqdhaxa ayaan adiga haydarbaadkaaga imid cid ii sabartay ma jirin markii adiga lagaa reebo waxaad iga aragtay un ha igu qiimeynin waxaan ahay qof aad u fiican sharafteyda inay sare u kacdo ayaan jeclaa aniga waxaasoo dhan ban looma ka fikiro waxaan ahay nin iska daabacsan qof ii qalantay inaan guursado ayaan rabaa waxaan haystana farxad igula noolaato sidaa darteeda biliis hadalkaaga intaan yuusan ka badan fariinta aad iimaylkayga ka dirtay waxba ka daran dhaawacyada aad hadda ii geysanayso gabagabada sheekada adiga igama helisoo maaha xataa magacayga kama aadan helin waan xasuustaa inaad hore iigu sheegtay baan umatee qarniga hadda jira gabar lagu magacaabo maba jirto gabar yaraad rabtaa soo maaha hadda maxaan kuugu wacaa rama krishna adigii magacaaga waad isleedihiin hadalkayga maqal oo ku qanac banumati rama krishna labadana magac markii isku leefaaq qurux waa ama ku wada qanacana labadanaba